بسم الله الرحمن الرحيم cashirkan ayaan qaadanaynaa wuxuu daba socdaa cashiradii hore aan soo qaadanay oo ku saabsanaa qaab dhismeedka uu leeyahay network-ga. Dhowr qayb ayaan soo qaadanay, dhowr qaabood ayaan soo qaadanay. Midka ugu horeeya oo ahaa muxuu ahaa ring topology, kadib waxaan qaadanay bus topology, haddana waxaan qaadanay muxuu ahaa star topology ayaan qaadanay. So marka maanta waxaan qaadanaynaa mesh topology ayaan qaadanaynaa. Mesh topology-ga waxaa waaye halkii computer kale ayuu ku xiran yahay, ayaa fiiladiisa ku xiran tahay. So marka halkii computer waxaa laga yaabaa dhowr fiilo inay ku xiran tahay. Hadda kan oo kale saddex fiilo ayaa ku xiran. Saddex fiilo ayaa ku xiran hadaa fiiriso maaragta diagram-kan sawirkan. Marka waxaan dhihi karnaa faa'iidada uu maaragtay uu noo leeyahay network-gan waxaan dhihi karnaa waxaa waaye high redundancy level ayuu noo sameynaya. Oo haddii fiiladan ay maaragtay damage uu ku yimaado ama ay dhaawac ku yimaado ama ay go'do, wuxuu noo sameynayaa in uu maaragtay fiilada kale uu isticmaalo ama fiiladan kale uu isticmaalo. Marka disadvantage-kiisana waxaa waaye waa very expensive, waa qaali because mataqaanaa wuxuu u baahan yahay fiilooyin badan ayuu u baahan yahay. Fiilooyin badan ayuu aad u baahan yahay oo maaragtay computer walba saddex fiilo ama afar fiilo ama shan fiilo ay ku xiran tahay waaye. So marka waxaan dhihi karnaa waa very expensive, waa qaali macnaha dhibaatada uu leeyahay. Laakiin haddii la dhaho isticmaalkiisana waa very macnaha high redundancy ayuu noo sameynayaayo oo haddii fiilo ay naga go'do maaragtay fiilada kale ayuu isticmaalayaa. Marka tusaale ahaan mesh topology waxaan dhihi karnaa, waxaan tusaale ahaan ugu soo qaadan karnaa internet-ka. Internet-ka ayaan usoo qaadan karnaa adduunka laga isticmaalo oo maaragtay internet-ka hadda adduunka la isticmaalo. Tusaale ahaan oo kale Soomaaliya ayaa joogtaa oo kale. Ruutahan ama computer-kan Soomaaliya ayuu yaalaa. Waxaa rabtaa inaad Facebook ama Google isticmaasho oo Google-ka aad gasho ama Facebook aad isticmaasho. Say ku tegeysaa maaragtay Facebook oo server-hiisa uu yaalo ama data center-kiisa oo Mareykanka yaalo. Say ku tegeysaa waxaa ku tegeysaa waxaa la isticmaalaa mesh topology ayaa la isticmaalaa. Oo marka aad facebook.com aad qorto data travel ayay sameynaysaa oo waxay maraysaa dhowrka wado ay u baahan tahay, wadada rabto path-ka ay rabto ama wadada uu rabo ayuu qaadanaya. Tusaale ahaan oo kale marka facebook.com aad qorto oo aad rabto inaad gasho, wuxuu fiirinayaa wadada ugu dhow oo uu ka tegi karo maaragtay facebook.com oo America. Because adduunka waxaa yaalo ruutayaal badan ayaa yaalo oo wadamo badan Hindiya iyo wadamo badan oo maaragtay caalamka ku yaala ayaa waxaa la dhigay ruutayaal isku xiran yihiin. Macnaha anaga hadda ma ogin, anaga hadda Facebook aan iska galaynaa qaabkii ugu tagaynaa ma naqaano, laakiin waa fiilooyin isku xiran fiber optic ayaa la isticmaalaa oo badda iyo maro. Wadan walbana waxaa yaala ruuta ayaa yaalo, ruutahaas ayuu sii maraya. So marka haddii marka aan rabno kale Facebook inaan isticmaalno oo anaga facebook.com aan garaacno oo datada markay soo baxdo fiiladan haddii rabto inay inta marto fiiladan oo go'an tahay oo kale, wuxuu sameynayaa in fiiladan kale uu path-ka u bedesho, wadada u bedesho, wadadan kale uu maaragtay uu isticmaalo. So marka mesh topology waxaan dhihi karnaa waa tusaalaha ugu fiican oo loo isticmaalo internet-ka ayaan dhihi karnaa. Marka mesh topology-ga qaabkaas ayaa maaragtay asagana uu u sameysan yahay. Haddii aan isla fiirino qoraalka wuxuu leeyahay the wire mesh topology. Mesh topology-ga waa maaragtay a unique network design. Waa tusaale qaas u ah maaragtay mesh topology-ga in which each computer on the network connects to every other. Macnaha computer walbo wuxuu ku xiran yahay computer kale ayuu ku xiran yahay. Taasoo created a point to point, taasoo noo abuureyso connection between every device on the network. Network walba macnaha computer walba oo maaragtay oo network oo yaalo wuxuu noo saamaxayaa inaan xiriir la sameyno oo macnaha the purpose of the mesh design, macnaha ulajeedka oo mesh design-ka loo sameeyay waxaa waaye qaab dhismeedka loo sameeyay is to provide high level of redundancy. In high level uu noo sameeyo redundancy ahaan maaragtay cilad bixinta macnaha haddii kan uu naga halaabo kale wadadan kale saan u isticmaalno, fiiladan kale aan u isticmaalno. Macnaha fiilooyin aad fara badan ayuu isticmaalayaa. Macnaha high redundancy ayuu noo sameynaya. Mar walba wax nagama halaabayan anaga. Marka if one network cable fails, haddii hal maaragtay fiilo ay halaado, the data always has alternative path. Macnaha datada waxay helaysaa wado kale oo ay ka baxdo
to get the destination si ay meeshii ay rabto u tagto. Each nodeka wuxuu ka wadaa computerka each node computer walba can act a relay, macnaha computer walba wuxuu u taagan yahay inuu datada gudbiyo, macnaha marna ma laga yaabo datada inay gudbi weyso. Marka the waiting of maaragtay the wire of the wire for a mesh topology, macnaha fiilooyinka oo maaragtay mesh network-giisa can be complicated. Markaa fiiriso complicated ayay kula tahay fiilooyinka say u badan yihiin oo kale ka wadaa, macnaha sida figurka aan ka arkeen oo kale. The cabling costs associated with a mesh topology, macnaha wuxuu ka wadaa costiga waa qaali ayuu can be higher, mujadada can be higher, qaali ayuu haya macnaha maaragtay and troubleshooting a failure cable is tricky, macnaha si fududna maaragtay in maaragtay loo maaragtay shaqadii ay noogu sii socoto fiilooyinka haddii hal fiil nooga go'do kale. Because of this mesh topology is not at the first choice money wire network, macnaha ma noqonayso, macnaha kuma noqonayso yiri in first choice uu ku noqdo maaragtay mesh topology haddii aad isticmaalayso ka wadaa sida maaragtay xafiisyadoo kale, macnaha kambaniyada yaryar oo kale ma isticmaali karaano because waa qaali waaye, macnaha fiilooyinka macnaha network aad maaragtay qof macnaha maaragtay reer tabareed uu ka bixi kara maaha. Macnaha dad oo kambaniyada aad waaweyn sida internetka ayaan tusaale ahaan idinkugu soo qaatay ayaa isticmaali karo, ayaan idin dhahay saa hore idinkugu soo sheegay. Marka waa mesh topology-gana waa kaasa asagana cashirkeenana intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.